ma jirto ninka maanta mooyaala councilka u quudhila Soomaalinimadisa shaki ku jirto waa maalintii sinaanta ma aha maalintii kala sareenta magacaygu waa Maxaa Xasan Khaliif runaantii maanta waxa qorantay taariikh aad u weyn taariikhdaas oo xusi doonta cidda maanta haykalka dawladda haysa boqolkiiba boqol waan bogaadinaynaa qaab dhismeedka deegaanka ee la ballaariyay waxyaabaha soo kordhay ee muhiimka haday gobol tahay haday maamul magaalo tahay haday degmooyin tahay waxa la xushay goobihii ku haboonaa ee mudnaanta lahaa muddo deegaanka intii la asaasayna sugayay in qaab dhismeedkaasi la gaarsiiyo haddii tusaale aan soo qaadano dadku way isku dulmanaayeen gobolka City oo kale haddii aan soo qaadano gobolka City shalay waan ku wada dhimanaynay dhiiganagaan u hureynay wuxuu kulaaxayaa meelo fara badan baaxad weyn uu leeyahay ninka ka imaanaya cundufo shiniil adeeg u soo doonanayo dhibaato weyn bay ku ahayd sidaas awgeed xukuumaddu way asiibtay in halka gobolkaasi la kala gooyo IDD halka la leeyahay u cirifeysa qabalayaal kala ka sii shay iyo shiniil waxay isku jireen waa la wada garanayaa gurmad ma gaari karin adeegga bulshada asaasiga ayaa la fududeeyay inkii xaggaasi uu imaan lahaa goob kale uu tago oo sidaasi galbeedka uga adeegtay noqonaysa gobolka kaleete Liibaan la kala gooyay run ahaantii 980 kilomitir baa degmada Gurdaamool ay u jirtay magaalada madaxda gobolka Liibaan 980 kilomitir cid gobol isu jirayna ma jirto maanta xaqiiqda marka laga sheego 980 kilomitir wuxuu ku soo noqday hadda 360 kilomitir oo dherer ah caasimada gobolka iyo degmada u cirifeysa qabalaheedu wuxuu noqonayaa 360 kilomitir 360 kilomitir buu noqonayaa 360 kilomitir markuu noqdo caasimada qabalayaal kaleeti iyo xag ka sii xigo ilaa 90 110 markaas wuxuu noqonayaa ilaa 500 oo kilomitir oo dherer ah 450 kilomitir oo balac bay isku jiraan qundi hadda markan ka qiyaas qaadana iyo qabalaha sora balac ahaan deegaanka markan soo kan 450 bay noqonaysaa gobolka 450 ka caasimadiisa iyo degmadiisa kala balacaan isu jiraan 360 kilomitirna dherer ahaan isu jiro baaxadu la egyahay waa la garanayaa intuu oo dhul ku fadhiyo midda kale waxa gobolada maanta muhiimka ah ee mudooyinka 30 sano ee deegaankan intii uu jiray cabashooyinkaas qabay waxa laga jawaabay cabasho shacab dawladuna waxay u eegtay mudnaantii ay lahaayeen xukuumad ahaana shacab weynaha afkooda anoo ku hadlaya aqoonyaankii deegaanka dhalinyaradii deegaanka waan bogaadinaynaa waan u mahad celinaynaa gobolka Jarar gaashaamo ninka ka imaanaya ee dhagaxbuur imaanaya qarashkii degmada loogu adeegi lahaa bulshada wuxuu ku baxay shidaal ninka jooga gaashaamo ee qabalayga ugu sheeyo inuu u soo doonto dhagaxbuur adeeg uu u baahan yahay xaruntii gobolka adeeg baa ku xiran suuragal ma ahan bulshadu kadeed bay ku ahayd maanta xukuumadii garatay aad bay ugu mahadsan tahay Shabeelle gobolada ugu baaxad